waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka u dhaxeeya dalalka Masar iyo Itoobiya ee salka ku haya biyo xireenka weyn ee ay xukuumadda Addis Ababa ka dhisayso webiga Blue Nile-ka. Jawhar Maxamed oo lagu sheego inuu yahay ninkii sababta u ahaa inuu isbedel ka dhaco dalka Itoobiya, gaar ahaanna inuu iscasilo ra'iisul wasaare Dr. Haile Mariam Desalegn, ayaa fariin uu bartiisa Twitter ka soo dhigay ku sheegay in Itoobiya aysan ka waraacin cabashada Masar. Ma ahan inaan ka waraacno arrimaha ku saabsan Masar iyo dagaalka ka dhalan kara. Waa arrin faa'iido ugu jirta siyaasadda dalkooda. Dhibkeena waa faragelin nooga timaada Mareykanka iyo Bangiga Adduunka. Halka ugu dambeeya waa in la dhiso biyo xireenka hanjabaad walba oo ka timaado, ayuu yiri Jawhar Maxamed. Masar ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay isbuucan ka codsatay wadaxaajoodka saddex geesoodka ee ku saabsan biyo xireenka ay Itoobiya ka dhisayso webiga Niil inuu soo farageliyo. Masar inta ay cabashadeeda si rasmi ah ugu gudbin qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Degu Andarjawuf wuxuu warbaahinta dalka Itoobiya uu toddobaadkii hore u sheegay Masar inay diyaar u ahayn in wadahadal wax walba lagu dhameeyo oo ay doonayso Itoobiya inay cadaadis siyaasadeed oo ka baxsan wadahadalada ay saarto. iyadoo boqolkiiba 70 la dhameystiray dhismaha biyo xireenka ayaa waxaa la filayaa in bisha July la bilaabo buuxintiisa, waxaana aad u sii yaraanaya waqtiga lagu dhameystiri karo wadahadalada saddex geesoodka ah.